soo dhawow Haaruun oo halka ka qaado. waa mahadsan tahay professor cali maxamed geedi aadan uga mahad celinaya waqtiga inkastoon wada hadalna aniga isaga waqtiga uuna siiyey ayadoo weliba waqti cakiran lagu jiro waana soo dhaweynaa professor kusoo dhawow waxaan rabnaa bal arrin aad u fool xun qaab daran oo aad u xanuun badan oo dalkan uu hore uga soo gudbay ayaa sawir ka mida shalay soo baxay marka arrinkaasaan bal rabnaa oo aan aad kuugu soo dalbannay in arrinkaas aad bal ummadda u dul istaagto kuna soo dhowow arrinka ka dhacay saldhigga Wardhiigley. bismillaahi raxmaani raxiim horta dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee maqlaysa meel kasta ay joogaanba waan salaamayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. salaan kadib sida aad u cabirteen arrin murugal ayaa ka dhacday shalay magaalada muqdisho caasimadda dalka ah. waxaan la filin baa ka dhacay waxayna reebeen runtii raad aad u xun oo aan ummaddu ayna aad ugu farxin ayna weligeedba ku farxi lahayn. marka dhib baa ka dhacay dhimashaa timiday dhaawacaa yimid niyad jabaa yimid shacabkaanoo waayahan dambe ka raystay wax qalalaasa ah iyo xabad iyo qarax iyo ka raystay oo amniga magaaladu aad u sugan yahay sanadihii lasoo dhaafay ayaa wax unugshada dhaceen. waana wada maqlayseen oo waad arkayseen marka idinka naftarkiina talaad leedihiin soomaalida ee maqlaysa wixii aan idin dhaafahayna magaaladan joognaa siyaasiyiinaan nahay aqoon-yahanaa nahay waxbaan garanaynaa diyaar maa idin nahay inaan maaragtay idinkaga jawaabno waktiguna aad uu igu yar yahay oo waa laysoo qabtay waa idinka maqnaan waaye laakiin wakti badan ma hayo marka si uu waktigu noogu beeqaamsamo su-aale inaad weydiisanaan qabaa wax aan isa sheegan ma jiraan wada ognaa waxaa dalka ka dhacay. aad iyo aad u mahadsan tahay waa runtaa waana kaaga mahad celinaya waa run adoo waqti uu ciriiri kugu yahay waqtina siisay marka waa run su'aalihi hadda bilaabaynaa dhowr qof oo muhiimana waa u dhiibi doonaa oo rag iyo dumar isugu jira professor horta marka hore waa mahadsan tahay professor shalayto dhacdada dhacday waxaa kasii fool xumaa hadallada ka yeeray meesha sida laba hogaamiye laba mas-uul oo meesha taagnaa oo samata bixinta midna uu guddoomiye ka yahay midna uu xubin ka yahay labada guddoomiye hadalladooda waxaa ku jirtay in uu yiri mid ka mida xubinta ka mida samata bixinta inuu ka yiri dadka hortooda iyo saxaafadda uu yiri waxaan rabnaa muqaawamo inaan samayno iyo annaga waxaan nahay garsoor ma aqaan meel uu maxkamad ku noqday meel ay garsoor ku noqdeen ma garan karno hadalladaas iyo guddoonkana wuxuu yiri waa in tarabuunka lagu soo bannaan baxaa waa in sinai lagu soo bannaan baxaa waa in dayni lagu soo bannaan baxaa saddexda meeluu sheegay sawiray bixinaysaa dadku dad waaweyn wey caqliyadeedu laguma cayaari karo qabiilaa loo yeeraya haddii sinai kusoo bannaan bax la yidhaahdo qabiilka abgaalaa loo yeeraya haddii tarabuunka la dhaho qabiilka habargiiray soo bannaan bax wey haddii dayni la dhaho qabiilka mursadana soo bannaan baxa wey marka soo niyajab maaha dad hogaanka dalka soo noqday inay qabiilo hadda dadku ugu yeeraan oy banaanbaxyo khalaasa abuuraan kusoo dhow. horta aad baan uga xunnahay waxa shala dhacay inta dhibaato ka gaarta shacabka Soomaaliyeedna waa ka raali gelinaya anigu waan joognay waxa dhacayana waan maqlaynay sida aad u cabiraysaanna dalkani inuu ka guuray qabyaalad ka gudbay u gudbay dimuqraadiyad iyo tartan iyo xisbiyo iyo doorasho ayaanu ku haminaynaa marka in loo celiyo gadaal ee la yidhaahdo reer hebel ha soo baxaan oo afshiinis lagu dhaho afdadban iyo reer hebel horta ma jiro ayaan aaminsanahay qabiil meel keligii degan oo Soomaaliya laakiin waa lagu kala badnaan karaa deegaanada iyo degmooyinka magaalada Muqdisho yes runay ahaaday in loo yeerayo dad gaara dadka gaarka ah loo yeerayana dadka u yeeraya uma xukumaan dalka degmooyinkana ma xukumaan gobolkana ma xukumaan waa siyaasiyiin damac xilal doona kullina xilal doonaan all kulliganba marka in qabyaalad hadda ummadda loo celiyo anigu waxa ay ka faa'iidayaan garan maayo siyaasiyiinta shalay ummadda ka niyad jibiyey waa maqlaya warar intaa ka badan oo ka fool xumaa dhacayay waxaana loo soo siyaasi dhahaya waxaana loo soo doontay garsoor oo ummaddii baa noo timid oo cabashaana lagugu yimid anigu ma garanayo goorta hotel jazeera
siyaasiyiinta ku shirtaa oo ay maxkamado iyo garsoor dalka u noqdeen ma garanayo mar kale wuxuu leeyahay waxaan soo damiinan rabnaa dad maxaabiis ah maxaabiisna siyaasiyiinuma damiinatee nabadoonna ayaa warqado u haysto oo damiinta marka arrimahaasoo dhan anigu ma aaminsan inay yihiin waxa ay sheegayaan wax ka duwan ayaa jiray fawdo in la sameeyo anigu waxaan maqlayaa qaar dhahaya waxaa fashilmay afgembi waxaa sameeya cid awood leh nimankaas wax awooda ma hayaan waa siyaasiyiin waa damacay leeyihiin dalka inay xukumaan waa rabaan dadkii la xukumi lahayna waa la dilayaa waa la baabi'inayaa khatar baa la gelinayaa arrimahaasoo dhan ayaa dalka ka jira waxaana aad u jeclaan lahaa siyaasigu inuu howlaha siyaasadiisa qabsado laakiin dadkiaa noo yeertay iyo waagii ra-iisul wasaaraha nahayo maqli jiray nimankii kitaabka ummadda ku qaldaya beenta oo argagixisada u badnaayo dhahaya shacabkaa noo yeertay weli riyadii ay ku jiraan dadka qaarkood anigu mana ka leexleexanaya runta soomaaliya uma baahna maanta dhibaato in ummaddan loo geysto 3 sano iyo googo ay iloobeen qaraxyo iyo dil 40 dhimanaysa yoonkii 30 dhimanaysa yoonkii 100 dhimanaysay soo mareen marka jiritaanka dowladda maanta jirta 3 sano iyo intay jirtay waa yar yihiin wax shilahoo ka dhacay muqdisho iyadoo la iloobo marka in la xasuusiyo oo leesu soo daba dhigto dhowr iyo 10 dhashiika iyo hub iyo risaas iyo beekaamyo in la yidhaahdo booqashaan u soconaa anigu arrinku fiicanaan u arkayay natiijadii dhashana waad aragteen oo shacabkii oo dhan ayaa ka kacay in ilaahay intaasu noogu ekaysiina waa u mahadnaqayn aad iyo aad waa mahadsan tahay si fiican baad u dhigtay dalkan waxaa la sugayaa dadka shacabka soomaaliyeed bahdan xareeb markii microfonka la dhex qaaday dadku dhan waxay sugayaan doorashadii golaha deegaanka nimankan madaxweynta siyaasadda sheegta ama saamileyda siyaasadda sheegtan waxay ku leeyihiin dalkan doorasho kama dhici karto arrinkaas xoogaal baad u tahay aadna waad u fahamsan tahay maxaa ummaddu ka dhihiray oo ugu sheegi lahayd horta aan saxne saamiley siyaasadeed wax la yidhaha meel ay ku qoran tahay ma jiraan saami horta waa sheer waayo shirkadaha iyo dhaqaalaha la isticmaalaha saamiley siyaasadeed haddaa aragtaan jaha wareerin waayo siyaasiyiintu waa siyaasiyiin danaynaya siyaasadda dalka laakiin saamiley anigu eraga la yidhaha ma jecli waa run shacabka soomaaliyeed waa ka daalay siyaasadda mugdiga lagu maamuli jiray laaluushka lagu kala qaadanayo kuraasta la iibsanayey oday uu ka talinayey aqoon-yahanada la diidan yahay kuwaan aqoon lahayn la keenayey waa laga baxay doorasho dadban totally qof sheegi kara ma jiro dadku waxay rabaan shacabku inay awoodda gacantooda ku dhashadaan waa loo celinayaa inay doortaan cidda ay rabaan cidda aanay rabina diidaan waad ogtihiin dowlad kumeel gaara anoo ra-iisul wasaare ka ah ayaan ka shaqaynay muqdisho markay dowladdu timid in golayaal deegaan laga doorto muqdisho waa la doortay nadaamaan u samaynay waa qaybinay golo wasiiraan marsiinay dekareeto madaxweyne aan marsiinay kumeel gaaraan ahayn markaan xilka ka tegana waxaa dhamaystiray oo dhisay golihii deegaanada degmooyinka gobolka banaadir iyo kuwii gobolkaba allah u naxariistay ra-iisul wasaare nuur cadde iyo xukuumaddiisii oo laysku doortay oo guddoomiye la doortay inta la tartamay ummaddu markaa waxay heshay daday dooratay oo ay la xisaabtami karto oo hadday si fiican ugu shaqayn waayaan ay iyagu kalsoonida kala noqon karaan waad ogtihiin madaxweyne sheekh shariif ayaa markuu xilka qabsaday oo kala diray golahaas iyo nidaamkii lagu dhisay haddowna rabin hogaamiyaha markaa la doortay inuu inta basariyo yidhaahdo iscazilniyo islama shaqayn karne mid kale la doortay ma yeelina golihii kala diray iyo sharciga loo sameeyey markaasuu ku celiyey nin la magacaabaya u shaqaynaya ninkii magacaabay haddii berigaas uuna sidaa yeeli lahayn madaxweyne shariif sheekh axmed maanta waxaa jiri lahay maamul la doorto oo 18 sano jirsaday waa tan hadda eber haddana aan ka bilaabayno ee haddana la diidan yahay ee la rabo haddana dad la magacaabay u shaqeeya dadkii magacaabay in lagu sii wado soomaaliya
والدولة ما أنت جت مدحدين هديلين استدكين مدحدين الضغط شعب ونديار وياه dadka hortaagan horta awoodii kor istaagaan malaha caqliga kama xadi karaan shacabka Soomaaliyeed waa nasiib darro in dalkan khayraadku eegaagan ee la wada og yahay in dadkeeni baahan yihiin ee tahriib iyo bad iyo saxro ay ku dhamaanayaan aqoon-yahanadeen iyagoo haddii dalka la nabadeeyo ee mashaariic loo abuuro ee dhaqaalaheena la soo saaro ummadeenu ay sharaf iyo karaamo ku noolaan lahayd iyo asaagood adduunka waxa ka jira cidda intaa diidan waayo cidda la rabo in laba farood loo taago ee la iska cesho awooddaasna waxaa leh shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda ay kalsoonida siiyeen oo maanta jirta arrintaas anigu waa ku cadahay ciddi beeni ka tahay la doodo goobaha ha yimaadaano banaanbax waa la samayn karaa waa dastuurkay ku taallaa muwaadinku inuu cabiri karo ra'yigiisa qowl iyo qoraal oo banaanka kusoo dhigan karo si nabadgelyo ah laakiin dhowr iyo toban dashiikan soo qaadanayna iyo beekaamyo oo kontona markaasaan leenahay banaanbaxaan samaynaynaa hadday run sheegayaan inay shacab haystaan shacabkiyoon hubaysnayn ha soo baxiyaano dawladda ha u sheegaano amnigaa loo sugayaa shacabkaas waxa u sheegaana iyagoo socda u tagaa laakiin dagaal sokeeyaan dhalinayaa iyo ummadaan kharibaya iyo dadkaa la laynayaa arrintaas waa laga gudbay waa laga qaan gaaray cid ku celi karta Soomaalina ma jirtaan leeyahay Rizar waa maasanta Rizar soo lama dhigi karo nimankan samata bixinta markay hadlayaan eray ay ka cabsadaan ay jirto oo aysan afka ku dhufan oo ah annaga ma rabno doorasho dadban bay yiraahdaan hab dhaqankoodana waa dad u socdo doorasho dadban marka haddii ay buuqaan ay fureen dawladda waqtiga inta ka dhaco doorasho dadban lahayd mas-uuliyaddeeda soo ayaga ma qaadayaan inay ayaga dhibaatada dadka hor istaagin yihiin soo ayaga dusha laga saari maayo dadka shala dhaawacmay iyo kuwa dhintay mas-uuliyaddooda iyagaa la saarayaa sharciguna waa ka wan yahay madax iyo siyaasiyiin madaxweyne iyo ra'iisul wasaare xukuumad iyo baarlamaan oo sharcigu ka wan yahay haddaan sarreynta sharciga la aqbalin dawlad noqon mayno marka waxay joojin karaan malaha horta mana dhihi karaan teendadiyaan rabnaa iyo doorasho dadban afkooda kama sheegi karaan shacabkay ka baqayaan iyo dawladdaba hab dhaqankoodana wuxuu u egyahay dad raba doorasho dadban qaranka hoggaankiisaan wada raadinaynaa ururo siyaasadeedaan furannay waa tartamaynaa ha yimaadaana waxa ka tartamaa dadka may ka xoog badan yihiin ma siyaasi waxaa jira oo 100 kiilo miisaankiisu yahay iyo midow 20 kiilo yahay midow 10 kiilo yahay lama kala weyna sharciga hortiisa waa la siman yahay doorasho diyaara loo yahay waxaa la rabaa inay tartamaan nin walba wuxuu rabaa markuu asagu madax noqdo inaan la qashqashin dadkana waa qashqasha aniga xalay meelan ka hadlayaan sheegan waxaan idhi waxa ay ka shaqeynayaan waa quuri weyto waa xaasidnimo waa masayr haya laga gamban maayo waa la yaqaanaa ku hal u fiiriya raggaas hal u fiiriya waa dariishadii ka soo wada galeen iyo helicopteray ku yimaadeen xukunka dalka ee kuma imaanin process hoos ay ka bilaabeen iyo dawladnimo waxay rabtaa in hoos laga bilaabo xalay ma aha inaad dhegaysanayseen waxaan masaal u soo qaataa allah u naxariiste gudoomiye jawaari oo shaqaale caadiya ka bilaabay madax qaybeed noqday agaasimo waaxeed noqday agaasimo guud noqday wasiir ku-xigeen noqday wasiir asagoo ah dawladdii dunta militariga markii uu ku soo noqdo dalkana gudoomiye baarlamaan hal u fiiriya kulligood fiiriya markii dalkan halganka loogu jiray oo jamhuuriyadda saddexaad laga soo bilaabaya shirka carta intii ka dambaysay dhibaato kuwa abuuray ayaa madax noqday kuwii dhibaatada maanta taagan noo keenay oo kitaabka beenta ummadda ku khalday 90% waxay argagixisada maanta East Africa iyo Soomaaliya dhibaysa iyo adduunka 10% waxay ahayn qoliyaha xukunka doonayo oo la ogyahay oo xukunka ka qayb gala ee weli u taagan marka shacabka Soomaaliyeed lama khaldi karo sideedana dawlad baa dalka mas'uul ka ah cid mas'uuliyad ay u hayaan ma jirto cali maxamed geediyo kama duwan cali maxamed geediyo aba dawladda ilaalisha oo shacabku og yahay oo adduunku og yahay dawladda anugu dhibkan ka soo maray waa ogtihiin inta iswaalaysa mid loo qatay ma ku jira dawladda bal wallahi raadiya bal idinka maxaa aniga 5 jeer la ii qatay yay dawladda Soomaaliyeed hirgelin iyaga kamid ah kuwa qarxanay maxaa madaxweyne xasan sheekh 5 jeer loo qatay
loo qarxinaya raggaas loo qarxinaya waxay hadayaan dawlad Soomaaliyeed qalan iyagay ahaayeen intooda badan ay ahaayeen kuwa dawladda diidayo oo la diriraya waagan anigu ra'iisul wasaaraha iyaga waa maalin walba dawlad Soomaaliyeed markii la dhiso la dooro waayo kuwa ka hor imaanaya qodxaha u dhigaya maxuu ahay dhagxaanta u dhigaya arrintaas inay ka waantoobaan kula tal lahay haddii ay ka waantoobi waayaan ciday ka xoog badan yihiin ma jirto ciday mas'uuli ka yihiin ma jirto naftooda mas'uul ka yihiin muwaadiniin saalixa inta noqdaan yay shacabka niyadda ka jibinin yay ciidamada dalka ma jiraan ay leeyihiin yay u sheegaan waxaas kulligoodna waxaa ilaaliya ciidamada ayna mushaarsiin oo ayna gunasin oo ayna garaam siin ay ilaaliya oona ilaaliya anaga dhan marka arrintaas waa sidaad u cabiraysaan aad baan ugu faraxsanahay caawa intay maqlayso kulleeta ma yara laakiin runtu waa taas dawladdan waqtigeedu waa gabaabsi doorashaa loo diyaargaroobayaa ciddii wax isku haysa ha timaada miiska siyaasadda ee ha tartantaan taagannahay golayaal deegaana la dooranayaa ururo siyaasadeed ayaa lagu dooranayaa maaha muxuu ahay hebelaan iska rabnaa maaha xisbiyaa ku tartamaya golayaasha deegaanka lagu tartamayaa waa la dhisayaa muqdisho maamul la doorto oo waxaa imaanaya heer gobola heer degmooyin ah fayska ku xigana dawlad goboleedyada iyo qaranka in doorasho la aadaan rabayada waana sheegnay shirka bishii juunan qabanaynay bayaankiisay ku jirtaa in horta bal dawladaha hoose gobolka banaadir iyo gobolada inta ay dhiman yihiin la dhammaystiro waad ogtihiin puntland way ku guulaysatay somaliland way ku guulaysatay gobolada kale oo dhan inay ku guulaystaan dhismaha dawladaha hoosaa la rabaa ee isku level ay yimaadeen gobolada dalku kadibna dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka madaxdeeda la doorto halkaasaan taagana waa mahadsan tahay reer yawan aw muse ما شاء الله وروان السلام غيرت ماشي وذا جوكتو دن رحراب واكو سلامي وحوا الصومالي اي سيدو كره هارون واكو سلامي غيرت ماشي جوكتو كل وحوا ايمو وذا مقدان رزار السودو شنو واحد داعي هرتا وحوا waxaan ka naxnay oo runtii waxa waaye caalamka meel kasto ay umada Soomaaliyeed ay ku nooshahay runtii waxa waaye dalkan aan 3 sano iyo bar hadda waxa waaye aan runtii nabad iyo waxa waaye aanan dhagteen aysan ku soo dhicinin dhibaatada iyo waxyaabaha hadda aan maqlayn jirnay oo ah runtii waxa waaye dhaawacyo fara badan qaraxyo fara badan hotelkaas la galay xagga la galay umadii waxa waaye ma taqaana marka waxaas anagoo dhageynay ay runtii waxa waaye maalmahan ay waayeen inaan waxa waaye wixii shalay dhacay aan aragnay oo waliba maalmihii ka horreeyay waxa waaye shirkii samata bixinta isugu yimaadeen ee iclaamiyeen waxa hadda kuma laabanayo Haruun aba sheegay oo Soomaali ay oo ay ku dhawaaqeen muqaawamo oo ay ku dhawaaqeen banaanbax marka kacdoon shacbi waxa nimanka waxa waa iclaamiyeen marka sida ay wax ku wadaan hadda waxay u muuqataa in dawladda waxa waaye lugaha ay qaban doonaan laakiin waxa waa haddii dawladda xilligeeda hadda uu dhamaado sida ay wax ku sii socdaan runtii ma isleedahay waxa waaye dalkan in waxa waaye ma taqaana oo waxa waaye ka samata baxay nimanka hadda dawladda oo mandate haysata faraqa ku wada dhigan ma isleedahay nimankaas waxa waaye waa laga amaan helaya nimankaas hadda hubka aan aragnay magaalada ku wata oo runtii waxa waaye xilligaagii waxa waaye xilliidii ka dambeeyay hubka dhigis iyo wax walba aad sameyseen 2006kii si weynaan ula socda hubka dhigistii ugu weynaa Soomaaliya ka dhacday iyo nimankii waxa waaye warlords la dhihi jiray xilligaagii ayaa hubka laga wada dhigay laakiin hadda waxaan u jeednaa tiyo kale in hubka magaalada uu saa u daadsan yahay nimankan hubka laga dhigana waxa waaye ma taqaana dhaqanka iyo maskaxiyan iyo mentality waxay aaminsiiyeen inay xoog iyo muqaawamo ay wax ku muqoonayaan marka nimankaas horta waxa waaye in hubka dhigis dawladda ay ku sameeyso waa soo jeedin lahayd laba kulaba waxa waaye ragga waxa tahay runtii waxa waaye dawladda u dhuundaloolo oo dalkaas ammaankiisa mar walba ka shaqeeya taas annaga waxa waaye haddii qurbo joog aan nahay waa soo jeedinayna in waxa hubka dhigis la sameeyo si waxa dalkaas uu amaan helo oo ummadda Soomaaliyeed ay kalsooni u wada hesho tan labaad waxay tahay dawladdan hadda waxa waqtigeeda hadduu dhamaado qaabka ay wax ku socdaan waxaan u maleynayaa in waxba aysan u hagaagi doonin haddii aysan doorasho waxa waaye 8 bilood soo socota ama 7 bilood ama 5 bilood waxay doontaba aan la qaban marka haddii waxa waaye mandate-ka uu dhamaado ma laga yaabaa inay waxa waaye muddo kororsi ay sameeyaan oo waxa waaye ma taqaana ama 2 sano ama 1 sano waxa waaye guddiga doorashooyinka waxa waaye arrintaas ay soo jeediyaan oo baarlamaanka la geeyo bal arrimahaas bal noo falan qaybal horta dawladdan mandate-keedu waa gabagabayaas waana dadaashay runtii nimankaas anigu hadda waxaan ku fasira ma aqaano sababtoo ah dalkaanan madaxweyne ka noqday dalkaanan ra'iisul wasaare ka noqday wasiiran ka noqday markaan saan u dhaqmayaa sidii mooryaantii aan u dhaqmayaa sidii khawaarijtii aad maqlayseen in la leeyahay muqdisho dhexdiisa caasimadda qaranka dhexdeeda la leeyahay cali dheere iyo al-shabaab
معينا يا أمضى وقرمي معينا يا كوميالكي سومالي ده كله عندي مركا عندي كواس مركا أمانة يساهم حيك الدوان تاي سؤالها يا تاعن أول سويدين يا واحد جوجي كلام ما جرتو أود إليه ما جرتو دولته يدا مارتي مترتيبين يسه شرعي حكمين تهوك آيات ألسمي madaxda ugu badan magaaladan socota baabuur cabdibilaah oo afar qoryo ka saaran tahay iyo gaari wata anaga wadana waxa inta loo soo kaxeeyo technical la leeyahay waxaan doonaynaa maxuu ahay dadaan soo damiinaynaa iyo dadaan soo booqanaynaa iyo dadka in inta la kiciyo ay soo baxaan xabada dhacaan dawladda dadkii dishay ay yiraahdaan isku day waana u suurtoobayso waa ku fashin marka ma qabo inay hor istaagi karaan anigu mawjadan socotee Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed ay neecaw nabadgelyo heleen marmarsiinaha dhulkii la boobaya dhulka horta sidiisaba dawlad iskale dhulka dawladda leh madaxweynayaashii ka horeeyay madaxweyne xasan sheekh danguud waxaad maqasheen danguud madaxweyne dekretiisa danguud loo qad shacabaa lahayd dhul dad leeyahay goof oo ahaa yaa lala hadlay waxaa la yidhi meeshaan danguud ay lagu samaynayaa iskuul ha noqoto isbitaal ha noqoto muxuu ahay suuq ha noqoto masaajid ha noqoto wadaha yani danguuda lagu samaynaa danguud haddii lagu sameeyey dantii guud dhulkii lagu sameeyey dawlad la'aantii iyo dhibaatadii dalkan ka dhacday burburka qarankeena ayaa keenay in dawladdu meelahay lahayd oo dan guud loo sameeyay in dad iska dego 30 sano ka badan ay deganaa inay leeyihiin ay siiyeen in laga kacsho sharci waay meelo waxaa jira abusiibooyin la yidhaaho oo aan cabirnayn oo magaaladan ku dhextaan meelo dan guud inta loo qaaday 30-40 sano aan dan guud lagu samayn haddii maanta loo garto in dawladdu ay danti guud meesha loo galday hadii dan guud aan looga baahnayn in laga dhiso wax ummadda udana oo ama maalgelin lagu sameeyo oo laga dhiso warshado iyo daara dhaadheer iyo hoteelo iyo dadkana shaqo looga abuuro haddii dadkii deganay loo sharciyeeyo la yidhaahdo xamar intiina taqaana waxaa ku yaala xaafado isku rarana oo haddii gabaru foolato uuna tagsi u geli karin oo haddii mayd ka dhaco aan la baabuur geli karin oo tuugu geli karo ku dhuumanayo oo uu ku dhuumanayo kan al-shabaabka oo khawaarijta ku dhuumanayo argagixisada haddii la cabiro marka jida laga baxsheenna loo yeelo soo baabuurtu geli mayso dadkay buka iyo maydka iyo gabadha foolanaysa iyo lagama qaadi karo yaan qurux loo yeelinaa ku jirta caasimada haddana oo meeshu bilic quruxsan yeelanin waxaas ma laga yeelayaa waxaasaa Soomaalnimo waa been waxay sheegayaan sideedana hadda ka horaan walaal aan qaraabanahay oo aan Nairobi jooga ayaa inta wuxuu sameeyay maqana inta la xiray oo CID-da lagu xiray oo markii dambe la soo daayay aaladiyaa ku xiray markaasuu uu madaxweynaha xiray madaxweyne dad ma xiraa leeyahay ku xiray madaxweynaha xiray war hadda dhibaato la geysto booliiska jira si waa la baaraa ilaalina jirta maxkamada jirta tabiya dadka xiriir madaxweyne dadka ma xiriyo hadda waxaad maqlaysaa madaxweyne xasan sheekh dhulkii boob horta madaxweyne ma dhul bixiyo madaxweyne waxa bixiyo oo sharci u leh dawladda hoose gobol kasta Soomaaliya banaadir muqdisho dawladda hoose xamara dhulka bixisa dhulku haduu dan guud ahay dan guud lagu sameeyo waayo 30-40 sano oo meeshiisa ka yahay madaxweyne wuxuu awood u leeyahay inuu danti guud ka celiyo dawladda hoose u celiyo dawladda hoose waxay xaq u leedahay inay siiso cid ay u garato ama ha ahaato cid warshada ka sameynaysa hotel ka sameynaysa real estate ka dhisaysa canshuur ay ka helaysa iyadu dadkuna uu ku shaqaysan karo dadki deegaankaas deganay sii karta ay dhigi kartaa ha loo sharciyeeyo ha loo jarjaro ha loo naqshadeeyo marka shaqa oona lahayn madaxweyne in dad ay siiyaan ila madaxweynaha dhul bixinay madaxweynaha waa dhul ma bixiyo jooga ala kulli xaal maanta meesha xaaladdu marayso anigu walwal ma qabo sababtoo ah ciidamo awood u leh inay amniga sugaana waa jiraan maamuladii dawladuna waa jiraan inaan dawladnimo xananayaan aaminsanahay
haddaan damaci haya aniga waabay hayaahe waa tartamaya laakiin horayaan soo qaadanaya markaasaan shacabkayga dilaya markaasaan bisin cod ka rabaa anigu wali baan u arkaa intaas soo dhawaada هاي موسى هاي حقولهم ريريون ما نوض هوش هارون هاي راح الراب هاي Professor, thank you for coming. Professor, dhacday shalay dhacday. Ma dhanka qaanuunkii la aaday soo ma ahan oo aan halkaas looga tegin. Maxaa is leedahay? xalana meel shirahan ka sheegay waa la baarida lagu wadaa على ما قاينا دغيستين حسانده waxay ku leeyihiin siyaasiyiintu waxay ku leeyihiin sharciga dawladda حسانad kuma laha in shacabku inta dhagax qaato oo ku dilo oo inta qaato ku dilo shacbiga xasaanada gama alan kaftama ayaan waradii faras qoraati xasaanad mali oo hadii ay ku qaniino xasaanad mali oo hadii shacab inta ku soo qamaamo oo inta xumaan ka dareemo oo dhagax soo kaaga si xasaanad mali حسنات waxaad ku leedahay hay'adaha amniga iyo dastuurka dawladda sharciga ku leedahay nimankan hadii aad sharci adoo dambi faraha kula jira lagu qabto xasanad mali sharciga xasanada waa laga qaadaya maxkamadda lagu geenaya anigu wixii shalay dhacay in laga haramo qabo xalana waa u baaqay haddana waa ku celinayaa hay'adaha garsoorku inay shaqadooda qabsadaan hay'adaha amnigu inay baaraan wixii shalay dhacay sababtu maxay ahayd arrintaas waxaan qabaa inay socoto dawladuna ayna ka hari karin hadday isku daydo inay ka hartana shacabkan ka yeeli shalay wixii dhacay wax la cafin kara ma waa maasanta maadaama ay haddii maantana xataa nala joogtid su-aalaha ma dhammaanayaan maadaama waqti kooban waxaan rabaa inaan haaruun aan ku wareejiyo oo haaruun qof maadaama labada aalood nalaga dhageysanayo hal qof ku bilow twitterka ah hadan tigta u gudbeynaha isdhaafan u wadana insha allah salaam calaykum soo dhawaado بر سو دو هذا وما أصنتها الحرب يو سومالي آي وحاكلو سلامة بروفيسور برايم مينيس هراء علي محمد جيدي برايم مينيس وحاربا إنا سؤال كاويديو waxaa jirto shirkii ugu dambeeyay qolihii samatabbixinta hotel jazeera 3 qodob waxaa ku jirta ahaa in aysan aqoonsaneen dawladda hadda madaxweyne xasan sheekh hogaaminayo waxay kale ku dhawaaqeen qof iyo qori in shacabku ay qori qaataan dawladda la diriraan waxay kale ku dhawaaqeen in banaanbaxyo la sameeyo ma isdhihi kartaa dawladda waxay ku guuldareysatay inay ilaaliso amniga maadaama dawladduna waxa lagu eedeynaya dad badanna aaminsan yihiin dawladdu inay ka adag tahay keliya argagixisada maadaama aysan nimankani qoryaha wataan checkpointiyo badanna soo mareen dawladduna ay arrinkaa wax ka ogeyd eed noocaas ahna waa jirtaa kow su-aasheeda labaada waxay tahay prime minister fiidiyoyaashii ugu dambeeyey ka soo baxaya afafka hore saldhigga warta nabadda ciidamadii ilaalada ahaa ee la socday qolyihii samatabbixinta ayagoo dhahaya iridda qoftii ka soo baxda hal la dilo ayadoo rasaasta la dhacaya iridda hore ee saldhigga warta nabadda su'aalo badanaa ka imaanaya wiil dhalinyaro ah oo la socdayna wuu dhintay allah u naxariisto dhalinyaro badanna waxyaabahan tiktoka iyo x-ka intaba way kaa dhegeysanayaan wiilkaas muxuu ku dhintay markaad fiiriso waa mahadsan tahay horta shirkii ka dhacay hotel jazeera iyo sidaad u sheegaysaan waxa laga sii daayay dad iska hadlay ahaayeene muqaawamana cid samayn karta ma jirto cid maaragtay shacabkan khatar geli kartana ma jirto banaanbaxa sharci waayo laakiin siduu sharciga ku yahaa loo maraay anigu xalna waxa sheegay hadda ka hor raggaas aan sheegayno waxaa intooda badani waa raggii dawladdan ra'iisul wasaaraha ka ahay la dagaalamayay oo inta argagixisay iyo ajnabi keensaday yidhi kitaabka alla soomaalidu waa dad diinta jecel oo dadka waa isjecel yahay oo dalkooday jecel yihiin kitaabka allah idinku dhaqaynaa inta la yidhi argagixiso laga soo buuxsho dalkeena wixina dhex marana waa ogtihiin aakhirkina kitaabka haddii la furay
qarax iyo shilka iyo zuuq qorya ka soo baxeen waxayna dhex marina waa ogtihiin inay dalka ka carareen oo ka saarnana waa ogtihiin iyagi waay naftirkoodii isku dayaya mar kale inay muxuu ahay sidii markii hore waagii hore ay xukun ku heleen inay mar kale qoran ku helaan ma aaminsani inay samayn karaan anugu awooddaasna ma laha dowladda inay dagaal ku bilowdo go'aanay ka gaarto ma rabto laakiin inay iyagu dagaal bilaabaan shala waa ku talagaleen waxaa kaloo rabaa ereygan samata bixin la yidhaahaa waa qaladku ka bilowdaa hadda ka hore waxaan maqlay wadaad maraya meel maraya wuxuu arkay dukaan tabeella ku qoran yahay oo dukaanka alxamdulillah ku qoran tahay xadiyo ha ka dhig alxamdulillah macalinka inta ku leexday ninka dukaanka gadan oo dhihi adeeg tabeellaha waa qaldan yahay alxamdulillah maaha dukaanka alxamdulillah waa xawaay anigu ma aqaana quraan ma aqaana ma ii sixi kartaa waa kuu sixi karaa faqow inta yidhi inqaaskan soo weri oo wax lagu qoro inqaaskii uu keensaday macalinkii jaranjarta u dhigay inuu inta kalo tabeelihii u saxay beeshaha adaahada inta tiri xa ka dhigo raba macalinka markuu jaranjarta koray kiina uu inqaasti u hayo ayaa jaranjarta inta la lulatay macalinkii oo asagii wuxuu yidhi bismillaahi raxmaani raxiim bismillaahi marka inta ka taabto jaranjarta ka dhigo yidhi xa inaad saxdaan rabuula alifkaana qalada bisinkaana qalada ya bisinkaad baqalada maxaad xa saa isaawir waa ka dejiye waxaan uga jeedaa ereyga samata bixin la yidhaha dalkan cidda laga samata bixinaya ma noo sheegi kartaa idinku ma sheegi kartaa hadda kulligeen intay maqlaysa cadow maa kusoo cadow hadduu dalkan jiro waa al-shabaab yaa khawaarij argagixiso marka iyagoo ka hadlaya goobo dagaal inay dhiiri geliyaan deegaan doorashadooda mid inta ka hadla dadkiisiyo la gumaadayo xoolihii laga qaadanayo gabdhihii xoog lagu wadanayo ilmihii yararka ahay askar laga dhiganayo muxuu ahay isqarxiya leey iyagoo ka hadlaya ma maqasheen qaarkood waa xildhibaano iyagoo baarlamaanka ka hadlaya maaragteen oo dhiiri gelinaya ciidamada qaranka ee gabdhaha iyo wiilasha qoraxda iyo dhaxanta iyo haraadka iyo baahida u taagan ee u dhimanaya dalka taa cagsigeeda waxay taagan yihiin ciidan ma jiro marka horta nimankaas iyaga cali maxamed geejiyaa yaqaano dadka qaar ma yaqaano dowladda naftirkooda nimanka qaar ma yaqaana waa kuwii shalay dowladda diidanay waa kuwii maalin walba argagixisada taageerayay ilaa haddana iyaga waayo waa nimanka horta jaziira ka yiri cali dheere iyo al-shabaab aa u maciinayo ummaddan ilaahay iimaanka idinka qaad arrintaas marka anigu waa ka soo jeednaa dowladduna waa ka soo jeedaa oo arkaysaan awood ay leeyihiin iyo waxay samay karaan ma jiraan ayaanti hore kuwii igu ordaya meelaha kabaha ka cararaya ku jira shalana markii horena waa caaboonayaan markii dambena jidka ha loo furay inta la yidhi carareen waa arkaysa iyaga waa ordayeen marka dalkanu waa ka baxay qabiil inta qorya soo qaata dowladda u hanjabi karana ma jiro waa laga adag yahay dowladdu inay dadkeeda difaacdo inay shacabkeeda u maciinto inay cadowga ka celiso inay hantidooda nabadgeliso in muxuu ahay naftooda la maalgeliyo dowladda waajib saaran waay dowladdana waxaan ugu baaqaa oo ku boorinayaa inayna u dul qaadan qof ummaddan dhibaato u geysanayo gaal iyo muslim wuxuu raba ahaado madax iyo madax la-aan iyo wuxuu raba ahaado aniga cali maxamed geedi haddaan ummadda dhibaatayna malasi ka fiirsana ra-iisul wasaarihii hore waayo hala dhowra xasaanaduu leeyahay no xasaanadu ma jirto haddaad ummadda dhibaato u geysanayso in maxkamad la geeyo sharciga si la mariyo cabsiga ay wada galaan xaq ah wallahi oo ilaahay ugu ogyahay anugu aaminsana soo dhawaad aada u mahadsan tahay su-aashii wuxuu hilmaamay ra-iisul wasaaraha su-aasheedii labaad ee ahayd wiilkii naga dhintay ee la qalday xaruntii dowladda asagoo xabad la ridaayo xabad ku dhufanayo ku dhintay muxuu ku dhintay wiilkaas raggii meesha geeyana mas-uuliyadoodiina koley maanta waxaan arkaynaa ayagoo buug dhahaya tacsi furanaya marka ayagii xarumihii dowladda weeraray welina ma dhicin dowlad mandatekeeda ka dhiman yahay la weerarayo oo xarumaheeda lagu weerarayo wiilkaas hadda muxuu nooga dhintay dhalinyaro badan oo muqdisho joogto wadamada
reer galbeedka joogaana way dhegaysanayaan maxaa message u diraysaa dhalinyarada waa idin waa ka jawaabay wixii dhacay inta dhimatay inta dhaawacantay wixii burburay iyaga ayaa dusha loo saaray sharcigan u saari doona ما شاء الله هذا ما سنتهي ما شاء الله محربة رح نريبها ما شاء الله waxaan u yeerayaa dhanka TikTok waxaan u yeerayaa جناق الله عن قاعدة سؤال ديبو. بسم الله الرحمن الرحيم. رئيس الوزراء علي محمد جيدي والسلام على أفريقيا يبقولك رنتي وبقادنا فرصة ونعكسنا ونسيي ذلك الحين هذا بوسو شقيين تكسو كيسينا ومدى صومالي واحد مخاطك هاي دولة دي سوري اسماعيل إنه أنت من قرب تاجنا وقرأك وفي ليه taas ra'iisul wasaaraha waa uga mahadcelinaynaa marna kuma aanan arag wax maaragtay daliil ku aqranka Soomaaliyeed hiilkiisu ahaa laba su'aalood baan weydiinayaa su'aal waxay la xiriirtaa nimankan madaxda oo mucaaradka ah wax cusub dadka Soomaaliyeed ma aha in iyadoo oo dalku institution uu leeyahay oo dawladda mandatekeedu joogo inaan aragno balaayo in laga sheekeeyo waa la dumahaya iyo wala baabahaya shalayto muuqaalo la baahiyay waxa ku jirtay iyadoo oo la leeyahay xabsiga jabiya xoog baan ku galeynay nimanka madaxda hadalla ka soo yeeray ayaga qawaaniintu qofka noocaas oo raba kursiga Soomaaliya u saxay inuu qabto maxay ka qabtaa saameynta ma ku yeelanaysaa in ay hadhow ka hor istaagto inuu dalkan hogaamiyo mid kale waxa weeye waxay kaloo sheegeen Ali Dheere oo aanu ognahay dalkan dhibaatada uu ka geystay inay comparison sameeyeen inay barbar dhigaan dawladda oo ay yiraahdeen dalkan Ali Dheere in madax dalkan u soo noqday ummadda Soomaaliyeedna raba inuu hogaamiyo argagixisada cabsida aragtay ku abuurtay dhibaatada aragtay u geysatay in dawladda iyo systemka jiro oo maanta u dhimanaya dalka in comparison lala simo oo la sameeyo arinta noocaasna qawaaniintu maxay ka qabtaa waa baasan tahay ra'iisul wasaare waa maasan tahay adeer anigu horta amaanta adii amaanteena inaan leeyahay in kale ma garanayo laakiin waad ku mahadsantihiin aniga in dawlad Soomaaliyeed dawladii Maxamed Siyaad Barre kadib biilla Soomaaliya ay fariisatay ku shaqayso ra'iisul wasaarihi xukuumaddiisu u bareertay oo wiilal iyo gabdho ciidamada ay ku dhinteen oo maskaxi gashay oo maaliyadu gashay in Soomaaliya mar un dawlad loo soo nooleeyo ayaan ra'iisul wasaarihi lahaay waana sheegay inta jeer ee la ii qarxiyay inaan dawlad Soomaaliyeed la hirgelin dawladaha waxaan u dhowray marka waxa kamid ah haday burburto Soomaaliya dambe intaan nool harkimayno ama wala dalka wala gogoosana wala kala qaadanaya inaan ilaaliyo marka qofna uga marhaba abaalmarin qofna bilad uga marhabo qofna amaan uga marhabo inay dawlad Soomaaliyeed jirto naftaan agdhigayna anuuna inay ugu qabanaysaa aniga waxaan ka soo marnoon ogahay laakiin dad dhaxda uga soo dhacay oo dhibtoonan xanuun u soo marin dheedheelay la taaba dawladnimadu iska qaaday saarta kayad ay la tahay horta arintaas waa inaad ka xasuustaan waa idin kaga mahadcelinayaa labo qaanuunku waa cad yahay qofkii eed gala in sharciga la geeyo ee la xukumo shuruucda dalka ku taala dawladana xalay waa ugu baaqay ciidamada booliiskana xalay waa u mahadceliyay shacabka Soomaaliyeed waa u mahadceliyay waana amaanay waayo shalay sida ay u kontrooleen xaaladda aan ba caadi ahayn aniga waana idin sheegayaa wuxuu ma ahayn Siinay kaliya Siinay yahay tawfiiqay yahay tribunkay yahay daynile yahay inta qabsadaan sidii wax qabsaka ay yiraahdaan dawladdu waa in qalaamna dalkana Muqdisho la haysanaa riyadaasay ku jireen nimanku waana la ogaa waa laga taxadiray meel walba ciidana heeganahay caqligooda uu siiyey xataa hadday ku guuleystaan taas ilaahayba kama dhigeen inay khudbadii oo quruxda badneed oo madaxweyne xasan sheekh aqrinaya general assemblyga iyo school councilka in la yiraahdo dalkii ma haysatid ay ku riyoonayeen ay isu sheegeen beentaas ilaahayna ma dhihin ciidamada amniguna waa ka hortageen shacabkuna waa ka hortageen shacabku hadda waa kuwaas ha soo diraan shacab socda oo calama cad wata oo banaan baxayo wax tabanaya cad ha keenano masaakiin meelaha laga soo urusho $5 loo tuuray iyo $10 loo tuuray ay shacab u yaqaanaan ummadda inaga haligina leenahay uma baahna maanta wiil dhintay gabar dhinto Soomaaliyeed malaka muddo dili kariya
halganna waa ku dhiman karaan laakiin deedeesha nimankaan wadaan inay nooga dhintaan dhallinyaradaanu ma ogolin cid ka yeelaysana ma jirto awoodna uma laha dadka qaar baa u malaya inay cirkay dhulka kala hayaan mid waxaaya kuma jiro anaa caddaynayo haddii waxaayaan mayna qabsadaan may viila soomaaliya qabsadaan iyo airboortkeed dekada ee heesaan marka arrintaas anigu halkaasaan ka taagnahay sharciguna waa cad yahay qof loo aaba yeelayna ma jirto anigu marmarka qaar waxaan maqlaa qof siyaasi oo qaldamayaa la arkayaa naga dhaafayaan eed laga gelin dowladnimo eedaa loo galaa danta dalka iyo dadka diinta eedaa loo galaa waa loo dhintaa eedadka ay ka hadlayna waa loo dhintaa weli marka arrintaas meeshaasay idin maraysaa wax walwalihi ma jiraan soomaalidu yay walwalin dowladuna waa jirtaa dad aan dowladda ka tirsanayn oo dowladda intay garanayana waa joogaa shacab aan yeelin mar dambe in gadaal loo celina waa taagan oo Soomaaliyeed meel walba aad u baxsan tahay waxaan isku xijin doonaa laba gabdhood mulaaxay mulaaxo horta waa in salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ra'iisul wasaarahana waa salaamay su'aalaha inta badan ee aan rabay waa la weydiiyey bas keliya ani waxaan rabaa inaan advice ku darsado waxaan ka codsanaynaa dowladda Soomaaliya caasimadda muqdisho in ay amnigeeda sugto raggaasna waxaan tamaninaynaa ama rajaynaynaa in tallaabo sharci laga qaado oo aan aragno iyaga oo tallaabo laga qaaday oo la weydiinayo su'aalo maxkamad la geynayo sababtoo waxaan jiri kala dambeyn baan jirin tii shalay dhacday haddii laga aamuso kuwa badan oo kale ayaa dhici doona marka ra'iisul wasaare intaa hadashay oo dhan waan ku dhegaysanayay su'aalaha qabeen waa lagu weydiiyey aad baan u mahadsantay waa soo celiyey dowladdan ka rajaynaynaa anagu taasi aad u baahsan arrintaas waa u gudbinaynaa anigu hadda waxaan ahay gudoomiye xisbiyaan ahay waxaan u diyaar garoobaynaa oo shalay daraadiyo maalmaha laga shaqaynayo golayaasha deegaanka gobolka banaadir xisbiyaa ku tartamaya 20 degmo xisbiyada xubnahay ka helaan ma aqlabiyad hesha haddii aqlabiyad cidi weyso in coalition la galo ee la dhiso maamul la doortay ee caasimadda Soomaaliya ee gobolka banaadir waa diidan yihiin markay iyagu waa diidan yihiin nimankaa meesha jooga oo hoteelka kooxdaas magacyo kala duwan ay leeyihiin kooxda hotel jazeera waa diidan yihiin diidma ay diidi karaan malaha veto power cid siisana ma jirto shakhsiyaad siyaasiyiin oo Soomaaliya waay shalayay isu qubeeyeen iyagu isdileen shacbigii laga rabay cod shalay waxay ku dhigeen u malaymaayeen inay caqligooda siinayeen inay mardama weydiisan doonaan wax laakiin malaha madaxtinimo baraadi ma hayna dalka inay qaribaan oo ajnabi iyo cadow u shaqaynayay ay leeyihiin gabadha aad u maasan tahay gabadha kulligiin waa maasan tihiin su'aalaha aad weydiiseen aad iyo aad aan ugu qanacsanahay in la weydiiyo jawaabo aan ka leexana inay idin siiyaan rajayna weli 20 daqiiqo haysaa hadii hal iyo laba qof idin dhimayeen diyaar ahay haddaad fasaxdaan waa idin mahad celinaya professor hal iyo labaan u yeeraynaa waxa tigta ugu yeerayaa geesigaas hal su'aal qaado soo koobno su'aasha professor tamahaydo professor horta waa ku salaamaya ra'iisul wasaare magacaygu waa geesi dagaalka ugu qoran ra'iisul wasaare waxaan ku weydiinayaa waxaa jira maamullo aan dowladdii timaadaba la shaqayn oo darfaha ku dhegan sida dowladdii hore iyo dowladda dambaba ilaa haddana aan dowladdii ayagu wax afkala la samayn doorashooyinkan iyo sharciyadan ka soo horjeeda see loo qancinayaa ayaga waa gartay waa maasantahay magacaaga muxuu ah geesi baa la geesi soo dhawow horta waa su'aal aad u qiimo badan waayo aniga waxaan ahay ra'iisul wasaarihii bilaabay nidaam federaal dalka in lagu dhaqo xukuumaddiisu bilowday si federaalka loo dedejiyana axdi qarameedkii aan ku dhaartay aan ku shaqaynayo wuxuu farayay in 90 maalmood gudahood la magacaabo guddiga diyaarinta dastuurka federaalka guddiga dastuurka federaalka diyaarinayay waad ogtihiin dowladdii aan ra'iisul wasaaraha ka ahay Nairobi inay ku dhimato inay ka soo bixina lagu talagalay waxaa ku talagalay beesha caalamka qaybo ka mid ah waana qaybsheen sidaad xasuusataan intiinaan dhalinyarada oo hadda kadib dhalata ma ogi laakiin intii garan kartaa ma akhrisay waa la kala jabshay dowladdii 83 xildhibaano ra'iisul baarlamaanka horkacayo oo wasiirro kuweyga oo fallaaga oo qabqableyaal ay ku jiraan muqdisho loo soo diray beesha caalamka soo diray
annagoo ka fikirayna xaggeen dowladdan geynaa xaggeen ku barbaarinaa xaggeen ku kobcinaa xaggeen ku awoodaynaa annagoo ka shidaal qaadanayna dowladdii arta lagu soo dhisay madaxweyne cabdilqaasim sidii loo galay aad ogtihiin loo diiday villa soomaaliya loo diiday dekadii loo diiday aeroboortka ee balidoogle uu ka dhoofi jiray ee balidoogle haddana loo diiday waxaa sidaa yeelaana waxay ahaayeen qabqablayaal dagaal hogaamiye kooxeedyo hubaysan oo qabaa'ila iyo nimankan soo gurguurinayo maxaakiimta la baxayo argagixisada iyaguna salka kula jiray intaas annagoo ammaanka ku haynaan waxaan ka fikiraynaa war dowladda xaggeegii doonta annagoo qorshaynayna meeshaan u rari lahayd oo ka doodayna ayaa dowladduba inay dhimato inta lagu talagalaa nala kala jibsha markaasaa lasoo raray koox dhan oo guddoomiyihii baarlamanku hogaaminayo wasiiradayda ku jiraan oon amar iga qabinoo amaray yimaadeen amarna dowladdii madaxweyne cabdilqaasim meesha lagu cuno waayo baarlamanka aqlabiyadiisa 190 iyo googo aan haysanay oo ka tiro badnayn waxaan go'aansanay inaan jooga dowladda geyno waanagii joogar u guurnay ku barbaarinay ciidamo ku tababarnay kala jabkii waa naansici waayo wax badanaa naga qaribmay waa tii calaa cabdalla saalax madaxweynaha yemen allah u naxariistay uu na dhexdhexaadshay wataan baydhabo ku midowna la isugu keenay labadii gurub ee markaa baarlamankii iyo xukuumaddii ay dhammaystirmeen shaqada bilownay dastuurkaas waxaan ka tegey oo aan shaqada ka tegey 3 sano kadib isagoo maraya 40% 60% adhineed 60% waxay maraysaa maanta 17 sano 18 sano maraysaa soo in la diidan yahay maaha marka in dastuurkaas u galo soo in la diidan yahay maaha in Soomaaliya dowlad sharaf leh noqoto waad aragtaan hal gandheera la galay cunaqabataynta uu ka la qaaday deemankaana la kacfiyey East African Community kan galnay golihii ammaankan xubin ka naho maanta nala tuuga codkeena Soomaaliya la baryaya adduunkooda ilaa codka la qaba Security Council-kii intaas dowladnimo Soomaaliya la gaaro lagu gaaray dadaal iyo shaqo iyo ulisulib gadaal ha loo noqdo dadka dhahaya marka waa kuwa dalkaysan ma dhacayso dadka Soomaaliyeedna weligood gadaal in loo celiyo aqbali maayaan doorashooyadana sugaysa waxaan marka uga jeedo hadalkan dad waxaan maamullo federaal ha la dhisay iyadoo sharcigii federaalka la samaynin sharci federaal dalku malaha waa laga gaabiyey mar walbana anigu dowladii joogta waa xasuusinaya sharci federaal hadduu jiri lahay ma nin gobol laba gobol xukuumaha u dhihi lahaa ka mid ahaanshaha dowladda federaalka dowladda dhexe waa ka fiirsanaynaa iyo wada shaqayntaan joojinay iyo xiriirkan u jirnay ma dhihi lahay ya ma dhihi lahayn sharciga iyo federaalka maqay see lagu xukumaa hadda idinku isweydiiya aqoon-yahana wada tihiine anigu waxaan soo gaaray dowladdii militariga tii ka horeysa arday aan ahay tan naftirkeeda inta badan arday ahay laakiin waan soo gaaray gobol ninka xukuumo la yidhaha governor la yidhaha ama gobernatore wuxuu u raboorgarayn jiray oo warbixin siiyaha oo aamirta ka qaadan jiray agaasimaha waaxda gobolada iyo degmooyinka ee wasaaradda arrimaha gudaha agaasimo waaxeedaa xukumayay war ninka 2 gobol xukuma ama 3 gobol xukuma hadda waxa jira waaye oo state la baxayo dowlad goboleed ma sheegi kartiin cidu ma madaxweynaha jamhuuriyadda oo ama ka qaataa ma ra'iisul wasaaruhu ka qaataa ma wasiirka arrimaha gudaha ka qaataa ma agaasimaha gudaha ka qaataa idinku ma sheegi kartiin dalka waxa ka maqan waa sharciga federaalka application-kii la sameeyay sharciga oo jira waxa dan ee umadu ay u kala toosilaado kala dambeyn loo heli lahayn waa intaas welina waa ku taagnahay dowladana waa u sheegaa in sharci federaal la sameeyo oo dadka qabanaya ma xasuusataan Kenya sharciga ka jira county government is qaban waa federaal aan afka laga sheegay county government governor oo county waa state oo la doorto in la soo katiinay inta sharciga jibiyay xasuusan Kenya ee xabsi lagu tuuro okay annaga marka sharciyan jirin sharciga in la sameeyo la rabaa dowladana waqtiga waa dhamaado laakiin waa aaminsanahay in lagu sameey karo hal term am hal muxuu ahay kala fadhi in lagu sameey karaan aaminsanahay anigu nimanka marka waxay u barteen waa ciidan geela ama awrta baadiyaha haddaan la dabrin waa fogaanaya oo iska tegaya laakiin haddii la dabro meel fogaan aadi ma karo istaydyada iyo dowlad goboleeda in la dabraa la rabaa waxaana lagu dabri karaa sharci federaal sharciga federaalka ayaa meesha ka maqan dhibkaas waay waxa arrinta ee Soomaaliya ay la guracan tahay oo hore loola dhaqaaqi lahayd waa mahadsantahay gabar ilwaad la dhaansiinayna ilwaad ay
hilwaad waxaa laga yaabaa inay mashquul tahay waxaan u dhiibaynaa Osman hay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتو وائد السلامي الرحن ريب وعليكم صاحبكي السلام اللباح يا هارون دمانتو وائد السلام الرئيس الوزراء واكو سلام هذيك نحن ربنا سؤالكم ويديو لا حريرتا أرنتي كدعدي ورديغلي ورنتي dad badan oo qurba jooga aad wax loo jisay ana waxa kamid ah dad qurba jooga oo oleelay in muqdisho investment lagu sameeyo intii kii investment lagu sameeyay lahay dabaqyo laga dhisto dadku dhaqaale geliyaan xeebaha la dhisto wixii shal ka dhacayna waxayna xoogaa yar daday waxay gelinaysaa maaragtay dib u gurasho because waxaan soo xasuusanaynaa wixii jaraal koronto ka sameeyay 2016kii xashiiq markuu joogay wixii ka dhacay farmaajo markuu joogay 2022 marka si waxaan mar dambe loo soo afjaro oo aysan dowlad dambe oo Soomaali uga dhicin oo dowlad dambe madaxweyne kastuu yahay hadduu daaroodiya hadduu dirya hadduu qof qabiil kastuu raxwan yahay qabiil kastuu Soomaali uu ka yahay si muqdisho ay u noqoto magaalo caasimadu ay degan tahay qabiilna uusan ku awood badnayn oo ninka hadduu rabo qof inuu soo dowladda rabo inuu burburiyo oo kasoo almitay tuulooyinkiisii ma tahay nimankan hadda weeraray saldhigga gobolka saldhigga Wardhigley madaxweynaha hadduu yahay hadduu ra'iisul wasaare yahay in sharciga inta la geeyo dadka Soomaaliyeed life-na loo tuso confidence dowladuna tuso nimankan inay dambi galeen dambigan lagu qaaday hadday diidaan oo dagaalamaana midkoodana loo kano taas ma ku dhiirigelinaysaa dowladda aadaan u mahadsantahay dowladda waa ku dhiirigelinaya waana ku taageerayaa in sharciga la geeyo nimanka isku daya shalay inay dhiigga ummadda daadiyaan oo daadshay in sharciga la geeyo dowladdana xalana waa ugu baaqay haddana waa ku celinayaa waana ku taageerayaa cid looga baqayana ma jirto awood laga cabsadana ma laha maanta awood dowladdan cid ku muuqani karta ma jirto dowlad dib u heshiisiin waaye dowlad la dhoodhoobaya waaye dowladdan qabiilna hub ma soo qaadan karo kooxa guracan oo dana shisheeye iyo cadow u shaqeeyana dalkan ma burburi karaan shacabka Soomaaliyeedna dhagax xataa waa qaadanayaa dowladduna awooday u leedahay inay difaacdo waajibayna ku tahay inay shacabka badqabkiisa naftiisa iyo maalkiisa iyo cidligiisa inay ilaaliso haddayna ilaalinayna dowlad noqome arrintaas marka arrin ha ka shakina aad iyo aad aan idinkugu mahad celinayaa inaad fursaddan siisaan inaan cabiro ra'yigayga midda kalena anigu intaad tihiin ma aqacaawo ma 10 kun aad tihiin ma 5 kun aad tihiin waxaad tihiin dad mooshinkooda aan gudbi kar haddaad tiradin ii sheegtaan idinkuna midida dhiga intaasaan nahay Soomaaliyey sidaasaan qabnaa caawa farxad bay ii tahay intiinaan oo ka wada damqanaya waxa siyaasiyiinta dalkan soo xukuntay ay shala samaysay si aynu ugu noqon cod dheer ku hadla cabira ra'yigiina meel kasta marsiya iyana sheega tiradin dadka labada meel ka dhageysanaya waa 730 qofood markaan xirnaan ogaa karnaa lambarka saxda ah ee daawanaya iyo inta maqli doonto markaad gudbisaan anaa kuusoo gudbinaa lambarka saxda hadda tirada ma hayno oo runtii markii meesha la xiro ayaa la arki karaa inta ku daawatay intana dhegeysanaysa waxaasoo dhan hadhown kuusoo gudbinaa inta hadda kor loogu jeedo oo 730 waa gudaha marka la sii galo ka banaanaya insha Allah may anaga waxaan haysanaa inta kale aqoonyahanada dhammaan weydin salaamaya waqtiga waxaan ka wadaa anigana FM ku furan tahay aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa markii dhibaato aad aragtaan sidaan oo kale iisoo raasha anigu diyaar aan yahay ra'iisul wasaare waxa waaye anaa kuusoo gudbinaa statistics-ka waxa waaye barkii FM-na hadda waa ku furan tahay oo runtii hadda aanan arki karin ma ahan TikTok iyo waxa waaye space kaliya FM-na waa hawada waa ku jira wasaaraha ma hal mar intuuna bixin ma la hadli karaa ukaadi waxaan rabaa ma ada kada okay gabadhaas foosi qaado waa kaaga kelmadan ku dar rabaa anigoo kugu salaamay afka maamul goboleedka waqooyi bari waxaan kuu sheegayaa annaga inaan u taagannahay dibudhiska dalka ummadda Soomaaliyeed dalka diinta iyo dadkaba annaga waa idin garab taagannahay madaxweyne xasan sheekh iyo inta maskaxda iyo qalbiga wanaagsan ee Soomaalinimada jecel in dalkan la dhiso hore loo socdo annaga anoo ka hadlay afka gobolada waqooyi bari waan taageersannahay waana ku salaamayaa ku daro gabadha waa u jawaabayaa isugu adeer horta waad mahadsan tahay afkaarta ama
halganka waqooyi bari state loo galay Soomaaliya oo dhan waa ogtahay ummadda deegaankaas ku nool gaar ahaan gobolka Sool dagaalkii ay galeen waa la wada ogyahay halgankii ay u galeen waa la ogyahay midnimadii Soomaaliya ay xaqiijiyeen waana lagu abaal mariyo waa kuwa state-ka loo dhisay lala dhisay calankii ka babanayo wixii la dhihi jiray British Protectorate Ingiriisku haysan jiray Somaliland la dhihi jiray waa taa calanku ka taagan yahay Sool iyo Sanaag halkaasoo midnimadii Soomaaliya ku xaqiijiyeen ummadda waa dhisata waqooyi bari Soomaaliya state-ka loo bixiyay arrintaas waxaan balyeynaa waxaan ku xasuusinaa adeer siyaasigii ugu horeeyay markii dagaalku ka dhacay meesha idaacadaha ka hadlay Muuse Biixi ugu baaqay shalay waxaad aqrinaysay adoo SNM Maxamed Siyaad Barre ka diidaysay dulmi ma rabno cadaalad darro ma rabno wixii laga yeeli maayo ummadda ka daa madfaca ninkii yiri ahaa marka aniga guul gaar ayay tahay hambalyaan leeyahay qadkaan ugu jiray waxbaan ka dhisayay aad iyo aad aan ugu faraxsanahay in state ay noqotay meeshaas oo adeegyadii dawliga loo dhaweeyay oo maanta saf loogu jiro ID-ga qaranka in la taano loo doonto waay oo Hargeysana laga soo doonayo gorowo oo diiday siciidanina laga doonayo intay baabuur qaataan ay saf ugu jiraan qalbiga qulubta waa kaagnay waa la soconaa waana ku daawanay رئيس وزراء waxaan rabaa inaan maaragtay waan iyo Haaruun ah marka hore waa kaaga mahad celinaa waqtigan siisay waliba adoo waqti ciriiri ku jira aadan kaaga mahad celinaya arrintaas sidaad noo qadarisay bulshada Soomaaliyeed inkastoo mas'uulkoodii iyo siyaasigoodii aad tahay laakiin waxaa cajiiba nimanka kooxda fadhida jasiira waxaad moodaa aqliyadda bulshada Soomaaliyeed inay ku cayaarayaan sababtoo nin ka mid ah oo xubin ka mid ah baa wuxuu yiraahdaa Xasan Sheekh waxa uu wada waxa uu wado qaraabakiil waxa uu wada nin jeclays oo mar walba ku celceliya waxaan u joognay asagoo 3 kursi oo beeshiisa Djibouti markii maxkamadaha iyo ayaga la isu keenay iyo dawladda federaalka inta loo dhiibay asagana mid uu qaatay midna in adeerkiis la xamiyo uusi oo Cabdullaahi Geedi Raagal ninkii hadda wuxuu ka sheekeynaya marka aqliyadii dadka lagu ciyaaraya 3 kursi oo jifada ayuu laba kamid ah qaatay markaas wuxuu ka sheekeynaya marka soo dadka aqliyadooda lagu ciyaarayo waana mahadsantahay baalkii ra'iisul wasaare comment yar aan ku sameeyaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed weligiin waxaad raadisaan kulligiin way maqlaysaan Cali Maxamed Geedi oo shalay iyo maanta la leeyahay shalay iyo maanta ma taqaana shalay wuxuu ku hadlay waxaan maanta ku hadlay siyaasiyiinta Soomaalida dhaqankeeda noqotay isma fiirinaya asagoo wuxuu fiirinayaa nin saaxiib shalay oo saaxiib la ahay oo dan yar ka waay wadan yar daa ka wasiis ka dhaf halal calaygle marka nimanka meesha jooga anigu xalayna waa sheegay waxaan idin mid walba background-giisa la akhriyo mid wax dana u haya ama u soo qabtay Soomaaliya ma jiro waa ka wada danaystaan qarankaana in jaranjar laga dhigtay dana lagu gaara hadda qof baa ka dhawaajiyay idin kamida in dhaqaalihii Soomaaliya Nairobi la gashado khamiis kasta duurkii inta baxaan ay daara ay ka wada dhisteen Nairobi inta tagaan oo ku soo raaxaystaan oo lacagtii xagga ku soo kharash gareeyaan xamar lagu kharash gareey lahay ay soo xasabtiga soo dhalmanayaan waxaasaan muwaadiniina may dalkooda gashadaan hoteelo lu qurux badan iyo guri qurux badan ku yaalaan hadda si amni noqotay amni laga carari jiray marka waxay Soomaalidu ku maamaadaan libaax nin ganay iyo nin u galaday kala garay shacabku cidii xumaysay iyo cidii u macinto waa kala yaqaanad codka markay tagtaan la arki doonaa hadii alla idmo aad iyo aad u maasantiin inay fasaxdana rabaan marka way Harun way aad u maasantahay